goobahan doorashooyinka horena waan uga hadlay mid man ku soo koobaya maxaynu isku dilaynaa ciidan urursanayna maxaynu ciidanka qaranka u daalaynaynaa waxa la yiri go'aan hore oo ay codsadeen waliba dadka jiidaad degan dadkana la qaaday codkooda haddii leeyahay dhibaato ka jirta soo laga wada hadli karo ma cod la qaadan isku dilaynaa oo dad colaad uga abuurayna codka weyn isweydiinayna walaal suurtagal tahay mise ma wuxuu baan isla yeegaynaa dadku way isu yimaadaan arintay ka wada hadlaan wixii macquul ah uga hadla waxaan leenahay arintaasi marka hore arinta xuduuduhu way cadda distoorka loo raacaya waa xadkii uu ka tagay ingiriiska labada dhinac marka dhigto taas ay ogol yihiin taa la isku diidana wax marka dadka fidmo looga dhaxbuura ma jirto waa qof baa qaldami kara مثلا waxaa la tirsanayaa in ciidan gardarro ku dhacday oo gacan ku dhacday waa in laga dawmariya walaalka hadduu qaldamo waa inuu qofkii uu ku qaldamay dawmariya waxa jirta walaayada 6 goobood halkan la isku haysto 6 goobood waxa laga yaabaa 6 goobood ee marka aan wali laga gelin in dad aan arrin kala wata ay salaada lagu qabsadaan ma laga yaabaa inuu 6 goobood ka hadlayna ay lahaan waad ku qabsan wax kala wata 6 goobood inagu ma lihin dowlad goboleed ma lihin dowlad kaliya inahay haddii awdo raacday haddii saaxir raacdo waan wada leenahay xuduud ma kala yeelan cidii kolba awood leh waa dhisan doonta haddii la dhifan karayo 2003 arrintaasi noo timi 2003 markii madaxweynaha la dooranayay waanu shirnay waxaan ku go'aaminay 6 goobood in laga dhigo meel gaar ah oo cidna raacin 2005 been noo timi markii baarlamaanka la dooranayay maxaa la yeelay waxaan nidhi 2003 maxaa ka footiyay waxay 600 wal 600 isku dilmeeyay qolol halka u dhowdahay ha iska diiwaan gelisaan ilaa maantana maynu qaadin dhinac qaad leh inagu makhraj baynu leenahay makhrajka leenahay muxuu yahay waa 6 district baynu hayn waxa loo baahan yahay maabkii la soo qaado oo la eego 6 goobood 1960 ma district Boormeed district Hargeysa ma district Berbera saddex district baa isku haysteen laakiin inaynu saddex inta kala saari weyno 10 sanadood oo maanta kolba laga dhigto dad wax kala u jeeda ay ka dhigtaan marmarsiyo duwaynoo doqonimo goobaha waqooyiga Hargeysa 6 goobood guud ahaan mowqifka xisbigu waxba iska bedelin ee waa kii aan hore uga sheegnay meediyaha ee ku saabsanaa halkaas oo halkii la qaatay February 2016 ee hay muwaadiniintu xaq u leeyihiin in sida muwaadiniinta kale la diiwaan geliyo in xukuumaddu ay kala xadiiso goobahaas iyadoo raacaysa dastuurka iyo 60kii iyo commissionku markaas mas'uuliyadda diiwaangelinta uu leeyahay iyo waqtiyeynteedaba oo xilliga lagu heshiiyay in xukuumadduna bil ku soo saarto commissionkuna la qabto sanaag maanta guud ahaan mawduucaas laga hadlay iyadoo la kala cadeynayo xilalka iyo waajibaadka hay'adaha qaranka المدرسة مالمين وين هذا كلا عضين وحلا إسلاقات ما أنت كو إن وحكي كصابسن ديوان جرينته يقبل شديده هي وقتين تيده هي معمول كيده ولا هي كوميشن كقرنكو ولا مذهب النهاية وهيك ليه قرنكو هم حكومة الله جهرمنا أي حكومة يدون الله ضحي وكم تيمان كان لسبوع iyo kala xadeynta